madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici ayaa maanta daahfuray shirweynaha qaran ee tacliinta sare oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda waxbarashada iyo saynisku waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gudoomiyaasha jaamacadaha dalka ka howlgala aqoon-yahano iyo badiba dad kale aad u tiro badan ugu horeyntii waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska mudane Cismaan Jaamac Aadan oo halkaasi ka hadlay ayaa xusay doorka ay leedahay waxbarashadu isagoona sheegay in sidii waxbarashada kor loogu qaadi lahaa isla markaasina loo tayeyn lahaa ay ka go'an tahay xukuumadda shirkan jaamacadaha ee loo qabtay jeedada loo qabtay waxa weeye in lagu gorfeeyo oo la isla eego oo la falanqeeyo waxaa arrinta gudbiya noocay tahay mustaqbalka siday noqon doonaan iyo dhibaatooyinka laga yaabo inay u taagan yihiin oo laga shiro laga wada hadlo waxaana rajaynayaa in ay ka soo baxaan is-afgarad ay isku afgartaan inay raacaan xeerarka waxbarashada iyo siyaasadda waxbarashada u degan qarankan oo ay sideeda ay u fuliyaan dadaal weyna ay saaraan sidii ay u tayeyn lahaayeen waxbarashada waddanka dowladdan jamhuuriyadda Soomaaliland ee iminka jirtaa waxay ku tashatay in ay waxbarashada hoose iyo ta dhexe iyo ta sare ay u qaado oo ay soo gaarsiiso halkii aqoon wanaagsan laga heli lahaa jaamacaduhu ay noqon lahaayeen qaar aqoontooda lagu soo higto dhinaca kale waxa iyaguna halkaasi hadalka iska daba qaatay wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska iyo qaar ka mid ah gudoomiyaasha jaamacadaha ka soo qayb galay shirkaasi iyagoona ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay waxbarashadu wasaaradda waxbarashada iyo sayniska iyo jaamacadaha dalka waxa u dhexeeya waa xeelka waxbarashada Education Act oo dejisan oo higher education ay ka mid yahay shirkiisu ka warramaso waxa kale oo inoo dhexeeya Allahumma salli ala Muhammad qorshayaasha qaranaan oo dejisan ee hiigsigeena ayna rabnay ka gaarnaa aqoonta kuwa inoo dhexeeya waa kuwa waxay inoo dhexeeya kaliya standards heerarka aqoonta looga baahan yahay عالميا يسوى الفرصية قوة أولية معالك جامعات كبيرة أقوتيل وبهاي ضدتي أنا ما هو يردتي institution هذا يقول أنا ما يقول سمي سنة جامعة كبيرة هنا وهلك كلية لقصة صار كرو ضد هي له وحنفل يا مركز ما أنت إنك هاي فرصة إن دبلوم la ururiyo standardska iyo hawlaha ama waxa aynu ka filayno inaynu maanta dhadhamino wiigii adduunka maxaa ka dhacay ee cusub ama science ama tacliinta sare ku cusub baliya ma soo akhriya Facebook ku jiraan ma ogaadaan waxa maanta adduunka bedelaya ee dhacay ma ogaadaan kama warqabaa marka masalan ba intayna hadda fadlan haddaan idinto macallin waliba ku leedahay waxaa wadan adduunka ku cusub oo dhacay oo wax laga yaabaa bay imtixaanayo laakiin sida sheegaya wuxuu maraya aqoonta ka waraysa ugu dambeyntii waa halkaasi ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici aad iyo aad u faraxsanahay maanta ka soo qayb galo shirka lagu dardargeliyo tayeynta tacliinta sare Soomaaliland oo runtii aad iyo aad loogu baahan yahay waqtigan joogno saa la socota taariikhda Soomaaliya soo qabtay ee shirooda ka warramay inagoo kuleeyahay waxay burburkii ka tegay meel adag baa ka soo bilowday meel hoose ee ku soo socday tacliinta maanta meel fiican runtii waa marayna أفراد كلاهو حتى المقطع حلو بعضها جامعين روحي هاي وكريم كبير هاي إن دليل مشغول هاي وحدة أما كل هالشيء هاي أو خطرات مشغول هاي إن لو وقت أصلا أو جامعة وكريم كبير هاي عساقو بعضها هاي وكريم كبير هاي وجامعي برشة تاني
cabdisamad jaamac axmed cabdisamad gire telefishinka eryal hargeysa